subax wanaagsan ardaye maanta waxaan rabaa inaan idinkaga sheekeeyo sheekadaas oo ku saabsan wiilkii cajisoolaha ahaa. Waxaa jiray nin taajir ah oo leh beero xoolo badan. Waxaa la noolaa naagtiisa iyo wiilkiisa cajiska badnaa. Aabbaa wuxuu ahaa nin shaqo badan oo karti badan. Subax walba intaas qoraxda soo bixin wuxuu aadi jiray goobtiisa ganacsiga beeraha, xoolaha iyo dukaamadiisa siduu u kormeero ganacsigiisa oo idil. Subax wiilkii oo jiifa aabbihii u imaado wuxuu ku dhahay wiilkeygiiyow kac oo kaale shaqada ii raac. Wiilkii oo hurdo badnaa oo hurdo jeclaa wuxuu ku dhahay aabbo ma iska keydaysid maanta aan iska hurdee. Aabbihii wiilkii saaid uga carooday wuuna kasoo tegay asoo xanaaqsan. Aabbihii maalmo kadib wuu xanuunsaday. Xanuunkii dartiisa ayuu la geeriyooday. Wiilkii markuu aabihiisa geeriyooday wuxuu iska sii watay hurdadiisa ilaa wuxuu ahaa nin hurdo jecel oo caajis badan. Ganacsigooda waxaa ku imaaday hoos u dhac weyn. Wiilkii ayaa hooyadiisa waxay ku tiri wiilkeygiiyow ganacsigii hoos u dhaca u imaadee ma wax qabatido wax samaysa. Wiilkii wuxuu yiri hooyo ani maxaa aqaanaa oo ganacsiga wax kama aqaan. Waligayna aabahay uma raacnin goobtiisa ganacsiga meel laga bilaaban ma aqaan hooyo. Hooyadii waxay ku tiri qofka kaliya ku caawin karo waa awowga oo degan tuulada inagu dhigan. Asiga u tag oo weydiiso caawinaad asiga ku caawin doone. Wiilkii wuxuu yiri hooyo okay aniga u tagay beri subaxdii. Subaxda xigtay wiilkii wuxuu u soo aaday awowgii. Subax wanaagsan awowge. Wanaagsan wiilkeygiiyo ii waran xaaladaada. Awow waan fiicanahay sidoo aabuu dhintay ganacsigan waxa ku imaada hoos u dhac aad u weyn. Awow hooyo waxay ugu tiri u tag awowgaaga asaa ku caawin kare. Awow waxaan rabaa inay caawiso si ugu dhaqsiyaha badan awowge. Waan ku caawin karaa waan sax sida hooyada ku sheegtay. Anaa hadda ku caawinay. Awow degdeg igu sheeg. Wiilkeygiiyo waxa koowaad in laga rabo aad samaysid waxa waaye waa inaad samaysaa wax walba aabaha samayn jiray. Waa inaad soo kacdaa subaxdii xilli hore oo aad kormeertaa dhammaan ganacsiyadaada, dukaamada, beeraha iyo xoolaha. Dhammaan waa inaad kormeertaa oo aad tagto. Haya awow wax walba sidaad ifartay aan u samayn doonaa. Subaxda xigtay wiilkii wuxuu soo kacay intaysan qoraxda soo bixin ka hor. Wuu soo baxay wuxuu imaaday goobtii shaqada ganacsiga ka socday sida beerihii, xoolihii iyo dukaamadii oo idil. Wiilkii subax walba waxa lagu arki jiray ganacsiga shaqaalihii. Ma u jeedaa booska subax walba wuu imaadaa wuuna kormeeraa shaqada waa inaan u gudanaa sida tahay. Waa arkaa subax walba wuu imaadaa waa inaan shaqada sida tahay u gudanaa. Haddii kale waxaan ku weyn doonaa shaqadeena. Shaqaalihii dhammaan waxay ka cabsadeen wiilkii oo subax walba iman jiray shaqada. Shaqadoodan waxay u bilaabeen sidii hore. Dukaankii hadda sidii hore wuu dhaamaa oo ganacsiga dib ayuu u soo laabtay. Familkii waxay noqdeen dad mar labaad leh lacag. Lacagtii baa dib ugu soo noqotay. Hooyo ma u jeedaa ganacsigan dib u soo noqday hadda waxaana dad taajiriin ah. Wiilkeygiiyow waan u jeedaa waa inaad u tagtaa awowgaaga oo aad u soo mahadcelisaa asigana caawiye. Haya hooyo. Wiilkii wuxuu imaaday awowgii sida ugu mahadceli. Awowe waad mahadsan tahay. Ganacsigani dib ayuu u soo noqday. Haddan wax walba waa okay. Lacagteena dib ayaan u helnay. Awow waad mahadsan tahay. Wiilkeygiiyow anigu wax maan qabanan. Shaqadii adka dhan adiga ayaa qabtay. Awow macaan. Awow sidee? Wiilkeygiiyow wax walba waxay ku dhaceen dhaqamadaada xumaa iyo caajiskaaga badnaa. Dadka shaqaalahan sidaas darteed way ka faa'iideysan jireen shaqada maysan qaban jirin. Markay ku arkeen inay shaqada dib ugu soo laabatay ayagana waxay bilaabeen inay qabsadaan shaqadooda. Awowe mar walba subax walba waa shaqada inaad kormeertaa oo aad qabataa waxaad hadda qaban jirtay. Sidaas ayuu businesskaaga ganacsigaaga dib ugu soo kici doonaa. Awow macaan. Wiilkii markuu awowgiis dhageystay ayuu wuxuu ogaaday qaladaadkiisa. Markaas ayuu wuxuu bilaabay inuu iska daaciskiisa shaqadiisa dib u bilaawdo. Ardaye ujeedada sheekadu waxay ahayd caajisku waa shay xun. Sidaa darteed waa inaan wax walba ku qabanaa waqtiga
si aan uga hortagno caajiska badan.